teknolojiyadu waxay Soomaaliya dhaafsiin kartaa 30 sano wixii ina dhaafay baynu 3 sano ku dhaafi karnaa waxaan kaloo ku soo gunaanadaya the utilization of technology adeega teknolojiyadu waa wax nolosha qofka wax ka bedelaya waana shay la xiriira xuquuqda muwaadinka inclusionary iyo exclusionary analysis waa in la sameeyo dalkan lagu nool yahay sida loo baandheeyay ma si qofkii danyar ka ahaa takooraysa oo fursad uu nolol ku helaba u diidan ba mise waa si fursad u abuuraysa smartphone hadda TikTok baan ka daawanaya arinteedu maaha iyo Facebook hadda halka loo badan yahay laakiin smartphone-ku ilmaha yar iyo hooyada miyiga ku nool iyadana wuxuu barayaa ilmaha caafimaadkiisa iyo nafaqadiisa u ilaalin lahayd ilmaha yarna sidoo xirfado u kororsan lahaa odayguna beerta markuu falanayo buu wuxuu helayaa xogta sanadka soo socda roob yarida iyo ayaxa soo socda early warning systems baa la yiraahdaa hay'adda Sodma iyo hay'adda wasaaradda isbeddelka cimilada ayaa la rabaa ninka beledweyn inaan daadku u imanay daadku inuu kula hadlo muhiim ah daadka waa in lagaaga soo turjumo la yiraahdo war daadkii buuraleydii buu ka soo degay Itoobiya oo halkan uu soo maraya 4 cisha ku hadhay ka goro maatida laakiin isaga iyo daadku hadday wada hadlaan dee la dhimayba afkaarahaasaan rabnaa teknolojiyadu inay noo fududayso dalkanna isbeddelka cimiladu wuxuu ku keenay habkeenu u noolaan jirnay wax weyn iska bedeleen waxaan rabnaa markaa bal $90 buu noqonayaa baad tirahdeen guud ahaan sanadkii $200 inkastoo ay qaarku oranayaan markaad safartaba ii keen mid 1200 oo iPhone marka kan haddaad soo dhaweyseen horta culays baad ka qaadeen xildhibaanada iyo ragga telefoonada la weydiiyey $200 laakiin 200 oo telefoon inuu aragno ma rabno waa 200 caafimaadka la geliyay waa 200 waxbarashada la geliyay waa 200 oo muwaadin xogagaal ah oo adduunka la socda la geliyay adduunka inaad xaalada barga dhuxul dhageysato maahe adduunku muxuu rabaa inuu iibiyo beeraleyda ay geyso aad baan idinku hambalyeynaa barnaamijyadan waa barnaamijyada ay dawladuhu kabaan ka xunnahay dawladda jeebkeedu inaanu 200 inay wax ka geysato hadda wax ka gelin laakiin 200 wixii ay dhali lahaayeen inaanu wax ka qabanno shaqo abuur caafimaad waxbarasho baan ku rajo weynahay dee muwaadinka hadduu telefoon u iibsado oo dawlad ula tagaba ama wuxuu ku adeegsadaba uu waayo soo mushkilad maaha maanta markuu smartphone ka helo si ay hadduu u baahan yahay hadduu baasaboor u baahan yahay halkaasuu ka buuxinaya xafiis dawladeed oo la tago waa laga guuri doonaa xafiiska dawladeed wuxuu kugu dhex imanaya gurigaaga iyo qolkaaga iyo telefoonkaaga safarkaana ragga hormoodii ay ka mid yihiin inta la halmaasha ayaa nala geli doona